السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka cambaaraynayaa falka lagula kacay Qaasim Aadan Saleebaan oo musharax xildhibaan oo ka sharaxan gobolka Sool. waxaan leeyahay xorriyadiisa loo soo celiyo. xarigiisu waa dulmi, waa xaq darro, uu baalmarsay dastuurka Soomaaliland. waxaan doonayaa halkan inaan fariin uga diro channelka booliska dabagale. waxaan leeyahay maalintii lagu magacaabay aad baa lagu soo dhaweeyay. hadalladii qiimaha badnaa ee aad kula dardaarmaysay booliska shacabka reer Soomaaliland guda iyo dibadba way soo dhaweeyeen. waxaanay filayeen inuu boolisku noqdo saaxiibka dadweynaha. waxaan leeyahay hamiga wanaagsan ee kugu jira haddii lagugu dirqiyayo in aad shacabkaaga dhibaatayso, magaxumaad ka qaadaysaa. militariga intaad ahayd sharaf baad ku lahayd, jabhadda intaad ahayd sharaf baad ku lahayd. sharaftaadii ha iska maydhin, xilka iska casil, waayo dunidu iyo dadka damiirka nool leh waxa weeyaan wixii dhibaato waddankooda amarkaa ma qaataan, ha qaadan amarkaa. haddii kalena wax ka qabo, haddii ay dayac si kale u yimi uu yahay wax ka qabo. xadhigu waa khalad, waa khayral dastuuri in shacabka booliisku uu noqdo dad dhiba. waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro madaxweynaha. madaxweyne, maalintii aan lagu dhaarin talaanku siiyey 3 qodob bay ka koobneed inaad xusuusto mooyi. waxaan ku yidhi maalinta kursigaa lagu dhaariyo keligaa baa la dhaarinaya. maalinta laga xisaabinayana keligaa baa laga xisaabinaya. cidda aad u soo magacaabayso qarankanna ha noqoto cid wax tar leh oo karti leh oo wixii aad khalado ku odhan kara waad khaldantahay joog. kaasaa qarankana wax taraya, adigana magac ku yeelaya. ummadduna doorashada waa ku kala qaybsantay. khalad kasta oo dhacay maanta adiga ka madaxweynaa. sidii aad dadka u midayn lahayd waa shaqada koowaad ee kuu taalla. 3 qodob bay ahayd. maantana mid baan ku leeyahay. waxaan ku leeyahay shayga ninka la yidhahdo fulo waxa uu calaamadihiisa ka mid ah marka awood loo dhiibo awoodda inuu u isticmaalo dadka. nabar cadow ku dhufto, qabsado. intii aad waddanka timi waxaa bilaabmay xarig ceeb ku ah qaranka Soomaaliland. 4 madaxweyne kaa horeeyay aanu midna la iman. waxa weeyaan xarigu waxba ma keeno. waddanka Soomaaliland wuxuu ku yahay sumcad darro, adiga wuxuu kugu yahay cambaar. yaanu ficilkaagu ekaa ficil fulay yaanu ficilkaagu noqonay mas-uuliyadda lagugu dhiibay si wanaagsan dadka ugu adeeg. dadka kula joogaana kuu nasteexayn maayaan. madaxweyne may dhicin madaxweynayaashii kaa horeeyey madaxweyne qura oo inankiisa la yidhahdo hebel, magacyadoodaba ma naqaano, oo la yidhahdo waxbuu xidhay, halkan waxaa maray, faamligii bay cid isku haystaan, inan yar bay dhul isku haystaan. waxaasi ceeb bay kugu tahay, waa iga nasteexo. awoodda aad adigu hayso ha ahaato, awooddaada yaan cid kale isticmaali. adigay sumcad darro kuu tahay. shacabka reer Somaliland hal qodob baan odhanaya. waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland doorashadu way dhacaysaa, waqtigeedaanay ku dhacaysaa. dad badan baa waxaan ka maqlayaa muuse doorasho qaba. madaxweyne muuse wuu ku qasbaya inuu doorashada qabto. xoog kumuu iman, xoogna ku haysan kari maayo. waxaan soo jeedinayaa shacabka reer Somaliland ee weliba kulmiye u codeeyey, waynu aragnaa waddanka waynu wada leenahay. haddaad u codayso oo halku ku sii socdo baynu aragnaaye, haddii aad cod dambe siiso waxaan aaminsanahay inaad dambiile tahay. waayo waynu tijaabinay madaxweyne muuse. sumcaddii waddankaynu maraynaa. inamada yaryara baa ku heesaya madaxweyne aan imaade hay xidhin, muuse bixi hay xidhin. heerkaynu marayno waa halkii ugu xumay. waxaa gaadhsiiyey madaxweynaha. wixii dhibaato ee madaxweyne soo gaadho qarankii waynu la qabnaa inaguna. waayo waddankeenniibuu madaxweyne ka yahay, inaguu madaxweyne inoo yahay. markaa waxa weeyaan sumcad darrada isaga soo gaadhaa keligii ku koobnaan mayso.
qarankeenoo dhan bay ku koobnaanaysaa waxa weeyaan waynu aragnaa codka dambe ka ilaaliya insha allah doorashaduna way dhacaysaa waqtiyaanu idinka lumina doorashada u diyaar garooba taageerayaasha wadanina waxaan leeyahay doorashadii waa bilow taa golaha deegaanka iyo baarlamaanku haddayna dhaafto waxaa loo diyaar garoobayaa doorashadii madaxweynaha marka waxaan idin leeyahay aynu u diyaar garowno oo intii uu codaysay madaxweyne muuse waad aragtaan waddankii halka u maraye maanta waxaan leenahay kaalaya soo dhowaada aynu codka waddani siiya waxaynu heli doonaa cadaalad waxaynu heli doonaa sinaan waxaynu heli doonaa barwaaqo taasaynu isu kaashanaynaa taasaanaynu kula dardaarmayaa waxaanan leeyahay taliyaha booliska foolxumadan socota ee booliska wax ka qabo haddii kale xilka iskaga tag taasaa karaama kuugu jirtaa taasaan kugula talinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu